afar wasiir oo ka tirsan xukuumadda Ethiopia waxaa lagu eedeeyay musuqmaasuq iyadoo ay suuragal tahay in xilka qaadis lagu sameeyo isla markaana loo taxaabo xabsi. Faafayn dheeraad ah ayaan idinkaga haynaa qodobkaas. sida ay baahisay mareegta Ethiopia 360 oo kamid ah miidiyaha aad uga faalooda Ethiopia waxa warar hordhac oo soo baxay ay sheegayaan in lagu helay musuqmaasuq iyo lunsasho malaayiin bir laba kamid ah wasiirada Ethiopia iyo la taliyaha ra'iisul wasaaraha kuwaasoo suuragal ay tahay in xisbigu ku sameeyaan xilka qaadis iyo la xisaabtanba. Taqalla wasiirka macdanta Ethiopia horeyna u soo noqday maayarka caasimadda Addis Ababa ayaa lagu eedeeyay lunsashada malaayiin bir oo Ethiopiana waxaana mareegta soo xiganaysa ila wareedyo u gaar ah ay sheegteen in adabaqyo lagu dhisay hantidaasi iyo hanti kale maguurta ahba ay heleen hanti dhowrka dalkaasi kuwaasoo wali baaritaano ku wada nuqullo kamid ah cadeymahana u gudbiyay uu xisbiga barwaaqo waaxdiisa dabagalka hantida gaarka mas'uuliyiinta. Taqalla ayaa lagu eedeeyay in hantida ugu badan iyo lacagtaba uu lunsaday xilligii uu ahaa maayarka Addis Ababa kaasoo ka faa'iideystay muddadaasi kooban ka hor inta aan lagu bedelin Addis Ababa oo hadda maayar ka ah caasimadda Addis Ababa. sida lamida xogta ay baahisay mareegta Ethiopia 360 ayaa sheegtay in wasiirka maaliyadda Ahmed Shide uu isna qayb ka yahay xubnaha lagu eedeynayo lunsashada hantida malaayiinta bir oo Ethiopia waxaana ay sheegtay in xilliyadii ugu badnaa ay uu dhacay lacagahaasi lagu tilmaamay labadii sano ee ugu dambeysay taasoo iyaguna galkoodu hor yaala xubnaha xisbiga barwaaqo. si lamida Daniel Kibret oo la taliyaha ra'iisul wasaaraha Ethiopia ee dhanka arrimaha bulshada ayaa kamid ah xubnaha la hordhigay xogtooda xisbiga barwaaqo waxaana isna lagu eedeeyay lunsashada malaayiin bir oo isugu jirta hanti maguurta oo ka hirgeliyay caasimadda waxaana sida xogta ay ku baahisay mareegtu ku sheegtay in hanti dhowrku soo ogaaday xogta laba fooq oo waaweyn oo ka dhistay kasoo horjeedka adhababayga CMC-da ee Addis Ababa taasoo uu ka dhistay adduun lacageed oo ka badan 24 milyan oo bir halka sidoo kalena ay jiraan dabaqyo casri loo dhisay oo ka hirgeliyay isla caasimadda. inkastoo ay xogtaani rasmiyan banaanka ugu soo bixin haddana lama oga tallaabada ay qaadi doonaan xukuumadda Abiy maadaama xubno sarsare oo ka tirsan gulihiisa wasiirada lagu eedeeyay musuqmaasuq bareer ah iyo boobka hantida intaas leeg.